Assalaamu calaykum. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo habka gacmaha loo dhaqdo. Saabuunka rabtid waa ku dhaqan kartaa. Muhiimadu waa inaad ugu yaraan 20 second aad gacmaha si fiican u dhaqdid. Biyihii waa iska xiray si israaf u noqonin. Suulka badan si fiican loo dhaqaa. Suulka si fiican ayaa loo dhaqaa, looga celceliyaa. Kadib gacmaha dhammaantiis ilaa ilaabka calaacasha dhexdeeda, faraha dhexdooda jeermisku ay ku qarsanaan karaan. Suulasha muhiim waaye. Suulasha inaa ilownaa laga yaabaa markaa dhaqayno gacanta dhexdeeda. Kadib gacanta kulli ayaa hal mar ugu dambeyn saabuunka si fiican ugu dhaqi. haddana biyaha ayaa ku raacinayaa insha Allah. cidiyaha, suulasha, faraha kulli muhiim waaye. biyaha inaa hal mar ku shubtid boobsiis wax ma taraayo. sabraa loo baahan yahay. jeermiskaas wasaqaas meesha ku jiro inaad si fiican iskaga dhaqdid. waxyaala ish loo arkeyna ayaa jiro. ugu dambeyn biyi ayaa ku raacsiiyey. toos gacanteema ku taawanayay. suxulkay ayaa ku xiri tubadii sababtoo wasaqay meesha waa ku celin karaa. muhiim waaye marka